وبشي بركة سنيد أي نوسو فوله إلهي نبتقليو ينحريس الله نقو قارسيو إن شاء الله تعالى مع المير وبانوغا هرسن marka waxaan iskula dardaarmaynaa bishaas fursadaas inaanan iska dayicin fursaduhu waxaa laga yaabaa inaadan gaarin ramadaankan ama kan ku xigaba inaadan gaarin sida dad badanba aysan u gaarin ramadaanaad badan oo ay rajaynayeen inay gaaraan laakiin ilaahay awooddiisii iyo maqaadiirtiisii aysan ku gaarinin marka qofkii ilaahay uu gaarsiiyo go'aan ha qaato noloshiisa inuu wax ka bedelayo cibaadadiisa inuu wax ka bedelayo cibaadadiisa inuu wax ka bedelayo go'aan ah qofku ha qaato diyaar garowna qofku ha sameeyo inuu istighfaarta uu badiyo maxaa yeelay waxyaalaha ugu weyn oo qofka ilaahay xadradiisa inuu cibaado geysto ka celinaya waa dunuubta waxa weeye waa akbar caa'iq ila sayri ila allah inaad xagga ilaahayba tilaab u qaado waxa ugu weyn oo qofka ka celiya waa dembiyada qofku hadduu dembi leeyahay oo dembiyadu ay ka bataan waa qof silsiladaysan oo kale qof silsiladaysan oo dabran oo lugihii ka xiranna ma socon karo walidaalika cabdullaahi bin mascuud ayaa dadaa u yimid saxaabiga cabdullahi bin mascuud waxay ku yidhaaheen maa lanaa laa nastadiicu alqiyaama billeyl cabdullahi bin mascuudow habeenkii ma soo toosi karno oo innagoo caafimaad qabno oo xooggeenni uu noo dhammaystiran yahay ayaanan habeenkii soo kici karin cillada noo sheeg markaasuu cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi aqcadatkum dunuubukum waxaa idin fariisiyey oo idin silsiladeeyey dembiyadii aad gasheen ee ilaahay u toobad keeno yidhi cabdullahi bin mascuud marka qofka uu ka yacni dembi badan yahay cibaadadu way uga culustaa cibaadadu way uga culustaa maxaa yeele waxaad arki awood iyo karti kaliya inaysan ahayn ee macaani kale meesha ay ku jiraan qof waxaad arki waayeel ah oo soo toosaya 8 saac 7 saac kacay iyo nin dhallinyaro ah oo xoog leh awooddiisa caafimaadkiisa ilaahay u siiyey oon awoodi karin 2 ragco inuu habeenkii u soo tooso awood aan u lahayn waxbaa celinayo haysta marka bishan waxyaalaha ugu weyn loogu diyaar garoobayo si ilaahay deeqdiisa ilaahay inoo waafajiyo waa in istighfaarta aanu badino qofkuna uu go'aansado inuu ka faa'iideysto maxaa yeelay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi xadiiskii dabaraani uu warinayo mucjamkiisa uu ku warinayey ina lilaahi fii ayaami dahrikum nafaxaat alaa fatacaraduu lahaa nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay maalmaha qaar wuxuu bixiyaa deeq ballaaran ee deeqdaa gacmaha u hoorsada oo u bambaxa maalmo qaaliyahaa jira oo ilaahay deeq weyn wax weyn uu bixiyo maalmahaas u bambaxa maalmahaas marka waxaa loo baahan yahay inaan u bambaxno sida nabigu noo sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh roob intuu da'ayo ayaa la doogtaa haddii roobku markuu tago kabacdi aad baaldigaaga iyo fuusadaada la soo orodo waa caqli darro wey waxba kama faa'iidaysid marka ramadaan haddiiba ilaahayna gaarsiiyo aan go'aansanno wax badan inaan nolosheennii aan ka beddelno nin waxaa jiri jiray saxaabi ah oo la dhihi jiray anas ibnu nadri saxaabiga anas ibnu nadri sida bukhaari iyo kayrkiisuba ay warinayaan dagaalkii beder ayaa dhaafay fursaddaas ma uusan xaadirin dagaalkii beder dagaalkii uxud ayaa soo dhowaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi lain illaahu ashhadanii qitaala almushrikiin layarayanna allaahu ma asnac dagaal dambe gaalo ah haddii ilaahayba fursaddaa i siiyo ilaahay waa arki doonaa waxaan sameeyo yidhi dagaalka igu soo dhow oo gaalada kan maadaama aan ka baaqday saan uga faa'iidaysto ilaahay baa markhaatiyuu ka noqon doonaa anas ibnu nadr saxaabiga la dhihi jiray dagaalkii uxudaa yimid dagaalkii uxud ayaa yimid oo beder markaa ka dambeeyey markaasuu dagaalkii uxud markuu yimid ballanqaadkii fursaddaa inuu ka faa'iidaysanayo uu ballanqaaday safka horuu galay
meesha yani hubka la soo rido fallaarta iyo waranka iyo la soo rido uu ku dhacayo meeshuu istaagay waxaa saaxiibkiisa dhinaciisa ka taagnaa saxaabigii la dhihi jiray sacd ibnu mucaad markaasuu la yaabay ninkan sida uu u dhiiran yahay sacd ibnu mucaad wuxuu ku yidhi yaa sacdu innii la ajidu riixa aljanna duuna uxudin maxaad igala yaabi yidhi jannadiiyaa ii soo carfaysa jabalka uxud meel ka sokaysa aan jannadii carafteeda ka helayaa waa dagaalamay ilaa isagiina la dilay oo sida bukhaarigu uu warinayo bidcan wa 80 darba 80 wax ka badan oo nabara ku dhacay ilaa ninkii nin joogsanaya ma ah nin sii socdo ilaa naftu ay ka baxdo 80 ka badan oo nabar ayaa lagu dhuftay falam yacrifu axad ilaa ukhtuhu bibanaanihi cid garatay waa la waayey muslimiintu way jarjareen jirkiisa gabar walaashiisa waxay ku garatay farihiisii waxay tiri farahani waa farihii walaalkayo anas ibnu nadr marka saxaabiga wuxuu ka run sheegay ballankii uu la galay ilaahay min almu'miniina rijaalun sadaquu ma caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي وحولي المؤمنين وحاكم إذا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رقها كجرة مؤمنين وبلنك إلهي إلا قلن كرهن الشاقل صحابة وحي إليهم آيات داسي صحابي قاسي كسو الدكتي أنس بن النضري go-aankiisii uu ka run sheegay inuu fursaddaa ka faa'iidaysanayo ayaa aayaddaasi tilmaamaysay marka aan galno oon ka mid noqonno qolada ilaahay uu yidhi min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu llaha calayhi aan galno dee waxaad ilaahay kula ballanto iyo fursadda inaad ka faa'iidaysanaysana waa inaad ka run sheegto haddii kale munaafiqaad noqon haddaadan ka run sheegin nas'alu llaha tawfiiqa wasadaad إلهي أن وافجيه توفيق إله إسكاله إلهي أن نؤدي حبنه أن يقلوب تاننا إلهي أقول رقاجيه إن الدغلاس أن نكفى إيدي سنه إن لقارا ينا لما بقوله نبتقلنا الله نقول قارسي عافمات إن شاء الله تعالى السلام عليكم